بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام والسلام يا نهاية شعبنا الصوماليين علماء الدين iyo siyaasiyiin iyo madax iyo mashaba بقول توني عبرتم كل سلام يا جماعة ونحسن بالله سلام كبعدي أن أقول سيدا يهود أقول سيدا سومالا يهود أيضا أنا أقول سنة سوماليا ما أقول سنة waxaan xasuusanaa baasaboorkeena waxaa u qornaan jiray inaan lagu kala karin wadanka Israa'iil batashayna ma jirto mowqifkii aan ka taagnayn baanu wali ka taaganahay shacabka Soomaaliyeedna mowqifkaasi ka wada taagay marka aqoonsidaas waa iska aqoonsi faalisaayo aan dhihi karo maxay haysto كان دبعتن أصول سيدي تونا معي المستقبل الصومالي كودهان كارهان كوبلنا وقوي الصومالي وأيو حلاول إن أبورنا حتى حلاول أنو كعلو بيسكو معهن وما نسلان عننا ما حيسنو لكن حتى حلاول أبورنا دور ورئيسي oo aad iga qaateen oo hadda ka hor aan bixiyeyba waxay markii heshiiska Itoobiya la galay war Itoobiya yuhuud bay saxan u tahay waxa weeye seelaxna waxa raadinayo Israa'iil Itoobiyana maxay ahayd saxan u ah waan meeshii islaamka laga weerara haddana qoto kabxada حتى نغطو إيران حتى نغطو صوماليا whatever وأيو دول استراتيجية وي waxaan maleynayaa 6 bilood ka hor waraysidii hore oo aad iga qaateen inay ku jirtay fakarkaas aan qabay runtii sida aan u qabay baan weli aan qayb u soo baxay inay Somaliland ay Itoobiya sababtay u heshiinaysay ahayd inay Itoobiya Israa'iil soo kaliso Somaliland waana nasiib xumo weeye Itoobiya inay xadownimadii noo haysay ay kaarto Soomaaliya inay sii kala qaybiso yuhuudna soo dhexgeliso laakiin waxa meesha yaalla horta Soomaali ma yeelaysa Soomaali waxa weeye waa la kumaysan waayey Soomaali waxa weeye lagama kuuleysan karo Soomaali waxa weeye marka alkaan shisheeye ayaga midoobaya maantana wayba ka sii taran tahay oo tinteeni islaamka waxay naga naxlignay heshiiska yuhuud oo ay meesha soo kasoo nacrado ku soo tagayso intii mataqaana u turbaan sumataa حتى نعرض بويرتنا أقول سومية تاسوا تاسوية تنكلا أنو تنتصف عن ما كان لكن سيرة النبي وعنيش من مري يهود الشيس ولك للنبي محمد الشيس كلك لي وسألت تنقذ ميوها ما كان سيرة ما سامكواركي وهي هاد سرور سن وشروطها أي عشور أي بحناية ومركز وحدت تفاعنا يعني أن تيجان كهاي مركز والسلط كنا إن التفاعل كيف ذكرت هذا يعني إن عشور بحناية ما هين هالشيء أن إبراهيمية وحده لكن إبراهيمية قرشها أنا أو ترى horey ula yimid markiisii hore haddana uu tabada ka reexiyo waa tiin cusub oo nagu cusub midaan qaadan karnana maaha mid wadankeena loogu tuuli karana maaha kabcadana inaanu annagu xubin ka nahay dadka tifaacaya Soomaaliya inay ogaato baan u sheegayaa waanu ka nahay waa inaanu tifaaca kabcada iyo meelaha ilaahay كحرم تبعي المحيط تلك مسلكة أنا أتيت عبد وطفي
مكة مدينة everywhere everywhere in Islamic country in aanu wixii soo wajaha oo diintooda iyo dhaqankooda iyo soo farakeliya inaanu keeska kelino oo aan ka hadalno baa waajibna saarana tan annaka noo timid marka wayba ka sii weyn tahay waxaan dhihi lahaa Soomaali arrintaas inay ku soo socoto runtii meedihiina markhaatiga waa la heli karaa wararka bixinay markii uu heshiiska la galay madaxweynihii hore Muuse Biixi yani yuhuud maanta waxay soo wato waa yuhuudna waxay ku soo socoto waa Yemen iyo kabcada iyo Iiraan iyo dhulka Islaamka marka sidii baan aaminsanahay mana guuleysanayaan dadka u qaba inay aqoonsi ay heleen aqoonsi ma helin waxay soo dhaweysteen naclad bay soo dhaweysteen ilaahayna tusheena naclada ka ilaaliyo inay nacladu ku soo tagto maxay ahayto ilaahay ka ilaaliyo yuhuudna ilaahay baa horey nooga cafiday iyo cadow intaasoo sanaan dowlad la'aan ahayn oo nooleen ilaahay baan xafidaya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga xafido taas aqoonsiga anugu ma ictiraafsanin mana aaminsani in wax uun iska yarinin nin waalan baa hadalkaas iska yiri marka nin waalan baana u aqaanaa natiijaha la taliya toos waxaa laga socdaa live telefishinka bayaan ayaa toos laga socdaa oo live waxaa jiro shir u dhaxeeya Switzerland oo ganacsiga oo ka qayb galay madaxweynaha wasaaraha Yahuuda iyo madaxweynaha Ciro Somaliland marka iyo xukuumadda wasaarka xigeenka marka isbedel macnaha madaxweynaha wasaaraha Yahuuda maxaa ganacsi ka qoseeyo asay macnaha maadaama oo u dhahay ixtiraafan siiyay Somaliland oo ka tirsan oo kamid ah gobol ka tirsan Soomaaliya horta madaxweynaha Yahuudku waa maqaasar weeye qofka hadduu maqaasar yahayna wuxuu rabuu iska sheegi karaa maxay ahayto maqaasarkaas weeye oo prime ministerku xabsigu u soo aadi waayo meel walba tacwaa ka taala maraykanka unbuu jiro dheer oo ka badan saacadihii uu maraykan ku tagi lahaa uu u maraa marka waa madaxweynaha Ethiopia oo kale weeye madaxweynaha Israa'iil marka asaga unbaa loo soo tiray maxay ahayto sidaan maqlayna maxay ahayto ninka maxay ahayto gobolada waqooyi gudoomiyaha gobolada waqooyi gudoomiyaha baamuca kacnacado goboladii waqooyi galbeed xiro waxa weeye maxay ahayto madaxweyne kuma noqon karo inuu maxay ahayto yuhuudu tiraahdo madaxweynaata aqoonsidana anaa layga rabaa oo adaa laga rabaa international law marka la yidhaahdo horta Soomaali waa inay ayadu soo marsiiyaa aqoonsida oo markaas maxay ahayto ay isku waafaqaan inay u aqoonsadaan maamul dowlad u aqoonsadaan dowladna laba gobol dowlad ma noqon karto marka maxay ahayto waa iska wax maxay ahayto iska runtii afka laga yiri sababaha ay siyaasiyiin badan ugu aamusan yihiinna arrintaasaa ka mid ah waa United Nationka baa Soomaaliya aqoonsan Soomaaliyana waxaa loo aqoonsan yahay inta ay aqoonsadeen 1960 inaanan kala qaadi karin inaanan lagu xadgudbi karin waana saaxiba adduunyada lagu kala baxaa yuhuud adduunka iskama leh
yuhuud adduunka ma khasbi karto yuhuud adduunka maxay ahayto naf waxa weeye dhibaatadeeda maxay ahayto middle east baa maantato ay tab ku sii shidaysaa east africa waxayna arrintaanu sii abuuraysaa colaad hor leh oo africa iyo caalamka dhan kaarta hataana caalamka ka hortegi soomaalida lafteedu hataynan iska tabaqaban oo meeshay maraysa lagu tabaqaban waxa ugu horeeyo oo kantaalka maxay ahayto xabtiyinku ku soo dhaco waa barbara iyo hargeysa waay waxna uma jirto dalkoodu isku muuqda marka maxay ahayto kantaalkooduna iska dhaaf barbara iyo hargeysa kismaayuu kaari karaayo muqdishuu kaari karaa marka waa colaad ay u abuureen soomaali baan anuu leeyahay oo weliba wadamada islaamka ay ka mid tahay maxay ahayto yemen sacuudiga iiraan qatar waxaan la socodsiinayaa tan inay tahay mid loo abuuray in ay soomaaliya burburto oo maadaama ay dowlad hagaagsan aynan hadda jirin inay burburto oo colaad hor leh qabiilkii bay wax looga qaadi waayey tiintii oo la kala qaybiyey baa wax looga qaadi waayey 4.5 baa wax looga qaadi waayey sina way ku burburi lahaday way soo taaganta taasaa waxay keentay in la raadiyo inay yuhuudu soo dhex gasho marka yuhuud waxa weeye maantay bala soo raadsatay somalilandna maantay bala raadsatay ee aqoonsi mayna xirin sidaas daraateed baa siyaasiyiintu waxay u aamusan yihiin wixii horta wax taageertaan iyo waxa ka hadashaan ma taalla meesha dad baa waxay ku leeyihiin mucaaradkii baa aamusan maamul goboleedka puntland baa aamusan maamul goboleedka jubbaland baa aamusan maxay ka hadlaa waxaa hata markaa fiirisid shirka prime minister ku-xigeenkii baa tegey waxaa tegay maxayto gudoomiyihii gobolka waqooyi galbeed oo madaxweyne yuhuud u aqoonsatay waxaa jooga safiir deegaanka u dhashay tadmenis xasan sheekhu intaas isagoo marka labadaas gobol oo qaybna lala takaya waliba labada gobol waa lala takaya maxay ahayto ayuu xera uu madaxweyne ku sheeganaya marka gudoomiye weeye gobol maamul goboleed xataa wax ma noqon karo marka meeshii waxaa tagay prime ministerkii oo markii horena ka aamusay oo la aqoonsaday meeshuu ka hadli lahaa oo asna deegaankaas ka soo jeeda waxaa jooga safiirkii oo deegaankaas ka soo jooga waxaa tagay xerihii oo ay tabada ka wadaan nimanku marka taas waxay ku tusaysaa siyaasiyiintu inay wax badan og yihiin xasan sheekh asagaa fakarka la qaba waa in prime ministerka loo tiri lahaa madaxweynaha tagi lahaa madaxweynuhu safaradan ka maxay ahayto shirarkan ka hooseeya ka leebal hooseeya waa siduu tagi jiray sababta u tagi waaye shirkan trump iyo ummaddu imaanayso soomaali lagu caayiyo ama caalamkii kulandhaceedyo lala yeelanayo micnaha waxay muujinaysaa madaxweynuhu inuu maxay ahayto waa siduu raalli ka yahay dadkan doonaya aqoonsida israa'iil oo iswata oo aan ognahay prime minister ku-xigeenku tahafsiil asagoo haysta ilaa up to now shaqadiisaanu naqaanay waanu garanaynaa dadkii ka shaqaynaya buu ahaa inay somaliland kunisgutaan hesho lakali waxaan dhihi karaa ninkii saas aaminsanaayo ma suurtoobayso madaxweynuhu hadduu fakarkaas qabeen fakar khaldan buu ahaa shirkaana inuu asadu tago ama prime ministerku tagay laakiin prime ministerkii in la ignore kareeyo madaxweynihiina uu ka baaqdo beri subaxna uu u baxayo dabaaldeg ciidanka cirka iyo maaqan waxa la dhahay Ethiopia
maxaa important iyo tabartaka ciidanka xilka Ethiopia naga kale ayaka colaad noo abuuriyay caalamka meeshan u tusilahayn in Ethiopia weerar ku soo ahayd xeebteeda iyo badahayada inay iyadu Yuhuud noo keentay inay Soomaaliya kala qaybinteeda ka shaqaynayso inuu madaxweynihii barata u socdo safar oo aadayo Ethiopia oo ka qayb galaya xafladka ciidanka xilka maxaa ciidanka xilka Ethiopia xafladeeda important ma bahanba xataa waxa heer madaxweyne iyo waxaas haddii ciidu tagayso ilaaha ciidanka xilka Soomaaliya hadduu rabo ciidanku ha yaraado tabar yaraado kaliya ciidan bay leedahay kaasoo kala ka qayb gali kara oo levelkiisa marka anu waxaan u arkaa xasan sheekh bohol buu watankii ka sii riday diinta islaamku bohol ku sii tuuray qabuurihiibuu qufay aakhiro wax badan baa ku soo baxaya adduunka si aanu ma aqaan aakhiro wax badan baa ku soo baxaya dhibaatada iyo problemka muqdisho taala dadka maatada ah oo maalin walba qaylinaya waxa weeye aakhiro waxbaa ku soo baxaya dad baa waxay leeyihiin siyaasiyiintu mehala diblomaasiyiintu oo dadka afka u baxa la taliyaanu ku qoranahay yaanu la talinaa hataan aqoon iyo maskax iyo talo aan la imaan lahayn yaanu la talinaa horta talada iyada yaa dhagaysanaya taladaadu hadday tahay Soomaali oo sidaan halaya war shirkaas waxa ku habboon sida war waxa weeye arrintaas ajanteeda sida wasaaradda arrimaha dibadda active maaha waa wasaarad madaxweynaha u xiran iyo wasiir dowlaha oo asagu kareynaya lana socdo wasiir dowlaha iyo madaxweynuhuba in la aqoonsanayo Somaliland way ogaayeen marka in indhahana laga tiro maaha in tani la qabsada maaha tani waxa weeye dhulku haystay baa la soo weeraray dowladdu way ka hortay way macaareen meesha maxay ahayd ay ugu hambaliyaan lahaayeen wuu xoreeyey effort badan buu keliyey dhismayaashoodii buu dhisay ciidankoodii buu dhisay maxay ahayd waa la maagay in ay rabsi ka dhacdo cali masaarkii baa ugu dambeeyey ciidamadii la keenaya laasacano oo la rabay markay soo noqdaan ciidankaasi iyo ciidan Puntland inay isku dhacaan siyaasadda Puntland oo hormuud ku yahay madaxweynaha Puntland mudane Sicitani waxay runtii ciyaareen arrin fursad qaali ah inay cidna iska hor imaan oo Puntland nabadgelyadii lagu yaqaan sidoo kale Axmed Madoobe wuxuu xasuuqay al-shabaab shalay tadaanay ahayd meelihii dowladda lagama shaqeyn dowladdu kama hadlin dowladdu waxay ka hadashaa maxay ahayto inta xun iyo waxa xun iyo sidii wax u burburi lahaayeen laakiinse time is over waqtigii uu dhammaaday doorashadii baa la sugayaa oo loo fadhiyaa oo Soomaaliya oo dhan ay heegan u tahay Soomaalina doorashadaas waxay u noqon doontaa nasri bay u noqon doontaa ninkii Somaliland aan inay dowlad tahayna Somaliland waa barbara iyo Hargeysa iyo Burco awdal waa maamul inuu u dhismayo qof walba maskaxda ha kaliyo marka sidaasaan dhihi lahaa dadka fakarkaas qaba maxay dowladda ku lug lahaanshaheeda tuhum weyn ayaa aniga diblomaasi ahaan iyo maadaama la soo shaqeeyey maxay ahayto runtii aad baan u tuhumsanahay inayba la og yihiin oo ay maxay ahayto Soomaaliya inay kala qaybsanto ay raali ka yihiin la taliya arrintan hadda aqoonsiga soo dib dhac uma keenayso doorashada in la rabay waqtigeeda inay ku dhacdo waxay dib dhac u keenaysaa ma jirto isaaq ma hantadooda xun isaaq ma hantadooda rabo Soomaali hawi baashi maxay Yuhuud maxay ahayto maaha waxa weeye xubnihii awal ba isaaq ka imaan jiray
ama waxay ka imaan jireen muqdisho ama nairobi ama meelahaas xubnaha ka imaanaya baarlamaanka oo loo baahan yahay way imaanayaan waa baarlamaankiina sidiiba uga mid noqonaya nin ka saari karana ma jirto sida aanu soomaali looga saari karin xubnahooda baarlamaanka looga saari karin laakiin haddii loo masaabaxo la dhaho maxay ahayto ma ka mid noqonayaan iyo way ka mid noqonayaan weligoodna way ahaanayaan xubnahay ku lahaayeenna way ku lahaanayaan boosashanadii haysteenna way haysanayaan la tali xubnaha ka soo jeeda golaha wasiirada oo Soomaaliland ka soo jeeda soo inay macnaha arintan aqoonsiga ka soo horjeestaan ka aamuseen soo dhaabac oo dhinaca dawladda ah soo uma keenaysa macnaha waa u keentay waxa weeye watanan ku leeyahay Prime Minister ku-xigeenku waxay ahayd maalintii ugu horeysay inuu ninka hadlan noqdo asagoonan hadlin oona ka soo horteegsan ayuu maxay ahayto haddana waxaa loo tiray shir international shirkana xataa waxaan dhihi karaa dawladdu way ogeed sababta loo tirayna waxaa ahayd siduu ku imaan lahaa xiro oo gudoomiyaha gobolka waqooyi galbeed gobolada waqooyi galbeed ah maxay ahayto oo yuhuuddu ay buunbuuninayso yuhuud ma kalsan doonto etoobiyana horey baan uga hadlay soomaalina waanu sheegay markay saylac iyo la dhahay waa loo saxeexay etoobiya awooday nagu qabsata hadday jirto 30 sano aan dowlad ahaan lahayn baanu meeshaas fadhinay ayaga unbaaba wax naga soo raadsanayo alaaba naga raranayo ganacsiga ilaa haddana sidii ku jira tan kale ayagii baaba kala fadhisan oo qabiilo iyo isku haysta iyo maamulo marka waxay ka shaqaysay in maadaama aynan awood u lahayn Soomaaliya inay qabsato inay Soomaaliya burburto Soomaaliyana saas kuma burburi karto Soomaalina waxaa leeyahay hortada ka kaca waa hurutaan wax isaaq la dhaho ma jirto wax taarood la dhaho ma jirto wax haween la dhaho ma jirto wax shareer la dhaho ma jirto wax jilic la dhaho ma jirto wadanka Soomaali baa iska leh annaguna Soomaali baan nahay hal luqad baanu leenahay hal tiin baanu leenahay hal dal baanu nahay hal calan baanu leenahay NFSNF inaanu ka kacno oo xasan sheekh runta loo sheego xoog looga saaro wadanka hadduuna isxasilin anuu inuu isxasilaan ka jeclaan lahaa inuu tooro shaqo because wadankiiba iibi maxaa doorashada uu qabanaya ay tahay wuuba iibiyo wadankii afrigoorinaha isla waxa weeye wadankii qabuurihii uu burburiyey masaakiinta uu barakiciyey taasino daaw waa meedi ahaan waa markhaatiba ka tihin waanu haynaa sawirada maalin walba dadka waxa ku dhacaya marka anu waxaan u dhihi lahaa Soomaali hadda shato sir tartaga oo mucaaradka iyo maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland iyo maamul goboleedyada kale wixii majuur ah oo karan kara dhibaatada nagu soo wajahan oo gobolada waqooyina nooga soo wajahan oo dowladda hadda dadka sheeganaya nooga soo wajahan oo kuwa noo dhabacan oo ajaanibka iyo wadamo daris ah oo Itoobiya ka mid tahay oo talada aan dhahno waa walaalaheen ay ka mid yihiin nooga soo wajahan aan u diyaar garowno haddana loo diyaar garoobinna waxa weeye ilaahay baan leenahay ilaahayna waa sidaana ilaalin kara la tali waa mahadsan tahay la tali sare senior diplomacy toos waxaa laga socdaa telefishinka Bayaan TV iyo telefishinka Hiiraaweyn la tali sare waxaa ku daawanayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan baaqa ugu dambeeyo oo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan u dirayso la taliya waa u mahadsantiin waxaan leeyahay walaalayaalow maanteeto ayaanu waxaanu haysanaa fursadii aan uga hortagi lahayn yuhuud ma noqonayno Filistiin si ka taran baan noqonaynaa
falastiin waa dad isku xiran oo maanta waaba u jeetaanoo qasab keliya bay 2 sano ku dagaalamayaan yuhuud ku dagaalamaysaa laakiin anagu waa ka taciibsanay taciibnimadana waxaa naga nakliyay waa qabiilka iyo quranka iyo kala qaybka aan ku jirno walaalayaalow indhaha aan furno falastiin kuwii caawin lahaa baan nahay baytul quds kuwa qaban lahaa baan nahay waxaan xasuustaa ninkii raadiyo wuu helayaa 80kii shir lagu qabtay maxay ahayd Belgium Brussels baa yuhuud iskugu yeertay European Union 5 watan ayay waxay soo dhigeen miiska watamadii iskugu yimid hal watan oo muslimiina ku jiray asna maanta wuu burburay waxa ku jiray maxay ahayd Libya markaas ay Maxamed Siyaad Barre hayeen macnaha Soomaaliya yuhuud waa tad cilmi fiqh iyo wax ku shaqeysta watamada burburintoona oo Baytul Quds qabsantoona inay yihiin Suudaan iyo Soomaaliya iyo Yemen iyo Ciraaq iyo Syria macnaha waa 1980 baa shirka noocaas laga wada hadlay saalaysan aan u kala furfurnaa waxa yiri Soomaali qaxooti aan u qaabilno meel walba oo yimaadaan u fasaxa qaxootinimada kanadaan u yaacnay waana la qaabil Mareykan baan u yaacnay waana la qaabil wadankeena baan ka baxaynay annagii baa qabilna isugu keentay intaasna waxay ahayd burburka Soomaaliya waa istaraatiiji ayada aan ka bilowno aan burburin waana la burburiyay oo waxaan ku burburiyay waxaan jirin watan qani ah oo maanta sidaan nolosha rabo aad ku helaysid ayaa qaxootilay okolaaday qaxootidii baa waxaan u aaday Canada meesha ugu horreysay oo tir ana qaabilay Canada Mareykan Europe everywhere markaas waxaan loo furfurayay inaan wadanka ka baxno oo awood aan Soomaalinimo dhisan aynan jirin ama dawladu jirin Soomaalina la isku dhufto waa la isku gandhuftay oo waana ka burburnay maxay ahayto Ciraaq waayadii lagu xijiyay waayadii maxay ahayto Syria lagu xijiyay waayadii maxay ahayto Suudaan lagu xijiyay waa shan watamada ay sheegeen oo dhahan intay watamadaas jiraan dhismo aan sii dhisnaanayno ma jirto waxaana weeye waa la raadin karaa shirkaas 1980 ayuu wuxuu ka dhacay yuhuud markaasay maxay ahayto ay ogeyd in dadka qabsantoona aanu ka mid nahay oo Soomaalidu ay waliba cudud tahay istiraatiijiyada watamada looga soo weerarayana ay ka mid tahay oo yuhuud laga qabanto sidaas ayna noqonaysaa yuhuud annaka qabanayna Baytul Quds annaka qabanayna aqoonsi ay aqoonsadaan iska dhaafay Baytul Quds oo aan qabanay Ilaahayna tusitoona oo Soomaali dagaalkeeda kashay oo watamo muslimiin oo isku xiran dagaalkooda ay kaleen oo Ilaahay uu kuusha islaamka siiyay taasana Ilaahay aan kabriya Soomaalina taas inay u fakarto oo sidaas u fakarto yuhuud habaarka iyada ku dhacaya habaarka iyada ku dhaco Ilaahay caalamka ka qabto Soomaalina Allah mideeyo oo muslimiinnimadooda Allah mideeyo beer baa Soomaaliya ka bixi doona oo aakhirka Gindar iyo Koonshaan meel la dhaho Soomaaliya halkaas tagi doona oo magacaas hadda yuhuudda ayagoo wata Soomaaliya ka carari doona taariikhdaasuna way qoran tahay oo Soomaali baa qortay kalmaudiin macnaha wax badan baa laga qoray inay yuhuud mar walba weerar ku soo tahay Soomaaliya weerarkiina iyo burburkiina ugu bilaabmayna yuhuud baa sabab u ahayd kuusheenana waa tan hadda ay Israa'iil aqoonsatay waqooyi galbeed waa kuush Soomaaliya ay ku guuleysan lahayd insha Allah waana ka guuleysanaynaa aanu midowno aan hadalno meelaha ka hadalno waxaanu samayn karnaba samayno inaanu ka hortagno cadaawadooda iyo baabi'inta dalka ay baabi'iyeen
dadka ay leeyihiin waqooyi ay leeyihiin waanan ka xasuuqay 7,000 oo qof 2 sano gudahood oo ilmo iyo caruur ah bay yahuuda xasuuq marka waxa weeye xasuuq aan jirin oo lafa badan oo lagu soo kuro caalamku og yahay xataa waxaa markaas dhacay dagaalkii dhacay waxa baaba'ayay iyo waxa waxtilayay kuwii SDF SNM sheeganayay baa ummadda inta badan baabi'iyey marka aan iska hilmaamno qabiilka aan iska hilmaamno aan din la'aanta aan ilaahay isku xirno xaqana aan ku istaagno الله سبحانه وتعالى معنا نقولنا أتانو يهود أغاننا إلهي معنا وكبحيا يهود نعرض حكود عضو إلهي وقرنا نعرض وقرنا انت أسان سومالي لي